xildhibaan Axmed Khayre oo ka mid ah mudanayaasha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa waxa uu maanta dhaliilo kala duwan u soo jeediyay shirkadaha kala duwan ee Dahabshiil, Somtel iyo sidoo kale shirkadda biyaha Boorama ee Shaba isagoona ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka waqti xaadirkan ka socda degmada Boorama ayaa sidoo kale xildhibaanku waxa uu fariimo kala duwan u diray shacab weynaha kala duwan ee magaalada Boorama dhammaan dadweynaha sharafta leh Somaliland khaasatan Booramawiinta waxaan leeyahay maalin wanaagsan waxaan joognaa maalintii labaad ee aanu la wareegnay mas'uuliyadda degmadan Boorama waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu nagu asturo idinkana waxaan idinku bishaaraynayaa inaad maanta haysataan fursad dahabiya taasoo ah dhalinyarada dareenkiina ka turjumi karta doonaya inay degmadooda wax u qabtaan waxaan leedinka baahan yahay inaad garabkiina aad insha Allah tacaala aad nagu dartaan oo aad nagu caawisaan wax walba oo arrin iyo adduun iyo talo iyo tilmaan iyo tusaaleeyntaba annaguna waxaan ballan qaadaynaa insha Allah tacaala ka golo deegaan ahaan annagoo isku duuban inaanu ka shaqeyno mar waliba horumarinta degmadii naloo soo doortay annaga oo aan cidnaba uga habranaynin wax walba oo horumarka deegaankeena waxaan insha Allah tacaala rajaynaynaa waqtiyada soo socda qorshayaal fara badan oo aan leenahay ka golo deegaan ahaan taasoo ay ugu horeyso bilicda magaalada iyo nadaafadeeda waxaan wax kaga qaban karnaa iskaashi isku duubni midnimo iyo wadajir iyo inaanu helo taageeradiina oo hadda tiim Booramawiinta waxaan u baahanahay marka dadka ganacsatada ee kambaniyasha inay doorkooda qaataan kuwaas oo ay qayb weyn ka yihiin shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha xawaaladaha shirkadaha kale general tradingka iyo guud ahaan ganacsatada qaybaheeda kala duwan waxaan uga baahanahay inay doorkooda qaadato shirkadaha halkan aan ka xusaya maanta ee aanan baaq u diro aan doonaynaa waxa kamid ah shirkadda Dahabshiil ee caanka waxaan leenahay Dahabshiil way maadsan tahay guud ahaan geeyga Soomaalida iyo caalamka waxay ku soo kordhisay xadaarad iyo ilbaxnimo iyo dhismayaal iyo bilicda intaba shaqaabuurna dabcan way sameysay waxaan si anagu Booramawiinta hadaan nahay dadkii deegaankan loo soo doortay aan tabayna inay gebi ahaanba ka maqan tahay doorkii ay ku lahayd shirkadaasi gobolka maxaa yeelay waxa ay ku shaqeynaysaa waxa ay yihiin dhismayaashii qarnigii 19aad oo waqti xaadirkan lagu tilmaami karo dundumooyinka aboorku galo waxaan u baahanahay marka shirkadda Dahabshiil inay ka qayb qaadato horumarka iyo bilicda magaalada oo ay dhismayaasha guud ahaan caalamka ay ka hirgeliso kuwa lamid ah ay halkan ka hirgeliso maxaa yeelay ma sii socon doonto mana yeeli doono sida Somtel oo kale qol kiraabay ku jirtaa waxaan ogsoonahay inay guud ahaan geeyga Soomaalida ay ka hirgelisay dhismayaasha ugu casrisan ee waqti xaadirkan la jaan qaadaya halka ay wax marayaan annagana waxa ay ku ganacsanaysaa waxa ay tahay qol kiraa iyo dundumo iyo wax aan daar lagu tilmaami kareynin taasina noqon mayso runtii wax wada shaqeynta degmada iyo guud ahaan danihiin loo soo doortay iyo shirkadaha ganacsiga xiriirka aan la leenahay ka turjumaysa annagoo weerarayn fariinteeda koobaad waxa ay tahay Dahabshiil ay soo noqoto hana ka hirgeliso dhismaha u qalanto magaalada ugu bilicsan guud ahaan geeyga Soomaalida ee ah magaalo istiraatiijiya oo bariga Afrika ku taala uguna mustaqbalka wanaagsan aan danaynayno inay noqoto Soomaaliya ugu quruxda badan marka halkan waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa shirkadda Telesom oo runtii iyadu muujisay ilbaxnimo iyo wax huris intaba oo daartii saddexaad ka binaysay magaalada Boorama iyadoo waxay ummadda ka qaadaysay wax ku soo celinaysa waxaan leenahay waan dhiirigelinaynaa sharaa'iga noocaas oo kaleeta waan garab istaagaynaa waan la shaqeynaynaa waan hambalyeeynaa shirkadaha kale ee sida Dahabshiil dundumooyinka ilaa maanta ku ganacsanaya waxaanu qaadi doonaa hadii Ilaahay uu qadaro talaabooyin hadii ay wax ka bedeli waayaan oo ay magaaladan bilicdooda iyo horumarkeega qayb ay ka noqon waayaan aan annaguna ugu sheegayno ummadda magaaladan degtay iyo guud ahaan meel walba ay joogaan inay la macaamilaan oo ay xiriir wanaagsan la yeeshaan oo ay dhaqaalahooga iyo maalgashigooga iyo sayfina koonkooga ay ka sameystaan sharaa'iga wax huraya ee wadankooga maalgelinta u ogol taasi halkaasaan ku dhaafaya ku fogaan maayo haddii ay degdeg uga soo jawaabi weydo Dahabshiil oo ay wax ka bedeli weydana insha Allah tacaala talaabooyin kale aan ka qaadi doonaa waxa kale oo sidoo kale halkan aan baaq uga dirayaa shirkadda weyn ee dhinaca biyaha ee Shaba waxaan leeyahay waa shirkadda kaliya ee gobolka dhinaca biyaha loo daba fadhiisto amaba u qaabilsan bulshadan adeega ay fidinaysaana runtii uma qalmo in ay gobolkiina la yiraahdo iyada ayuu kali u ahaanaya iyadoo xidhnaanaya iyadoo aan ogsoonahay magaaladan 2 mitir ee la qodoba inay biyo ka soo burqanayaan iyadoo ogsoonahay inay tahay meelaha ugu khayraadka dhinaca biyaha badan magaaladan Boorama in maanta la yiraahdo biyo la'aan ama biyo ku filan magaaladii ma yaalaan iyadna ka aqbali mayno
sidoo kale iyada laftarkeega waxaanu faraynaa dhismaha qadiimiga ee ay ku jirto inay wax ka bedesho ummadana wixii ay ka qaadaysay wax ku soo celiso magaaladana maalgelinteeda iyo bilcdeeda ay qayb ka noqoto ku fogaan maayo oo sharaa'iga iyagii labaduba waanu soo dhaweynaynaa horumarkoogaan jecelnahay inay kobcaan oo ay dhaqaalahoogu meel gaadhaan jecelnahay inay waddanka maalgashi intaa ka badan ka samaystaan baan jecelnahay laakiin u dul qaadan mayno haddii dadkii hore ama maamuladii naga horreeyey ay wax waliba ay arkayeen oo dhaafayeen annagu waxa naloo soo doortay ee mas'uuliyaddeeda ay tahay ee aan ummadda ugu dhaaranay waxay tahay xuquuqdooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda inaan ilaalino waxaan ku ilaalin karnaa waxa ay geeyaan in aan u socodsiino waxa aanay geenaynaan ka istaajino marka walaalayaal dhammaanteen waxaan laydinka baahan yahay boormaawiyiinta meel walba aad joogtaan inaad u diyaar garowdaan horumarka deegaankiina dalkiina iyo degmadiina taasina waxay ku imanaysaa inagoo iskaashana oo meel uga soo wada jeedsana horumarka guud ee Soomaaliland iyo Soomaaliya intaba ka socda oo aan inagu sidii aan awalba hormuud ku ahayn aanu noqono maxaa yeelay magaaladeennani waa magaaladii bilicda waa magaaladii aqoonta waa magaaladii ilbaxa waa magaaladii xadaaradda taasina waxa aan ku hanan karnaa oo ku difaacan karnaa oo aan ku sii adkeysan karnaa inagoo isku duubni iyo wadajir boormaawiyiinta u shaqeyna dhammaan dadweynahayga sharafta leh maanta uu noqon mayso maalmo badan baan idin la hadli doonaa wax dantiinaan idin kala hadli doonaa idinkana waxaanu marti idinka nahay oo aanu idinka codsanaynaa inaad nala shaqaysaan gacmo furan qalbi furan iyo waji furan iyo gacan furan intaba aad nagula shaqaysaan inagoo iskaashanayna waxaanu ka gudbi karnaa xayndaab walba oo hore u soo jiray oo dib u dhaca deegaamadeena ay qayb ka ahaa